deegaanada Kulmisiro Maqdas Busle iyo Jamiica Misra ayaa dhamaantood ah kuwa lagu gubay dagaal beeleed hore uga dhacay halkaas waxaana maanta tagay deegaanadan mas'uuliyiin badan oo warkacayo kusimaha madaxweynaha Hirshabeelle ahna madaxweyne ku-xigeenka Cali Guudlaaw Xuseen iyagoo u kurgalayay xaaladda dadkii ku noolaa deegaanadan ay musiibada ku dhacday gudoomiyaha degmada Balcad Ismaan Maxamed Maxamuud Xaadool oo kamid ah mas'uuliyiinta tagay goobta ayaa sheegay in dadka ay dhibaatada ku hayso deegaanadan ay gaarayaan ilaa 3,000 oo qoys dhibaatadan maanta indhihiina haysto tuuladan ugu yaraan waxaa dhibaato ku soo gaartay dad aan ku qiyaasay 3,000 oo qoys ilaa 2,000 ilaa 800 oo qoys dad lagu qiyaasay oo gurigooda dhammaay iyo hantida ay lahaayeen halkan ku waayay dadkan waxaan rabaa inaan idin sheego waa dad walax cajiib ku dhaceen waa dad barakacay waa dad wali banaanka rogo sida ay u jeedino gurigooda ka maqan hooy ma haystaan duruuf adag ayaa jirta sidoo kale gudoomiyaha Shabeellaha Dhexe Axmed Meere Makaraan iyo wasiirka arrimaha gudaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cali Caadle oo goobta ka hadlay ayaa sheegay inay ku dadaali doonaan sidii dadkan dib u dejin loogu sameyn lahaa isla markaana gurmad degdeg ah loo soo gaarsiin lahaa maadaama hadda ay meel bannaan ah jiifaan iyagoo aanan haysan meel ay kaga gambadaan dhaxanta iyo roobka waxaana ugu daran inaysan bahaysan wax ay ku maareeyaan noloshooda wixii hanti ahaan ay u haysteen ay ku gubteen intii ay socdeen dagaalada iyo sidoo kale dabkii la qabadsiiyay deegaanada ugu dambeyn madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle ahna kusimaha madaxweynaha Cali Guudlaaw Xuseen ayaa sheegay in loo baahan yahay in labadii dhinac ay ku dagaalamay deegaanadan la isku keeno lana dhameeyo colaadda waxa uu maamulka degmada Balcad faray in ciidamo joogto ah ay u gooyaan halkaas haday tahay dib u heshiisiintana waa la dhameystiraa haday tahay dib u dejintana insha Allah hadii la raali ka noqdo waa diyaaran u nahay dadkii dib u dejin loo sameeyo guud ahaan waxaan ugu baaqaa dadka ku nool ma aragtay deegaankan colaad dhowr iyo 20 sano qolo boqol ku duuleysay lama arkin qolo iyo deegaan laga qaatay ama laga xureeyay qolo kale ay ku noosha lama arage idoo ma aragtay qof waliba ay ka qoomameynaysa wixii dhacay adib la soo jiraahe gudoomiyaha gobolka iyo gudoomiyaha degmadana waxaan faraynaa in deegaankan ciidan la keeno oo nabadgelyada dadka dhaxdhaxaad u noqdo si ay dadku kalsooni ugu soo noqdaan oo qoftii ma aragtay geed qudaar ugu tiilay haday liintahay haday cambataaba waxooda ay nabadgelyo ay ma aragtay ku gurtaan ay helaan dadkii kale intooda xoolo dhaqatada ay kuna deegaankaana inay kalsooni helaan oo ay ka baxdo meesha colaadii alla raba hadii la raali ka noqdo Yusuf Abubakar Ibrahim telefishinka caalamiga oo Cable Jowhar